ومعجزة كسر ظاهرتي قبل كأوضل جار أهان دقمدي سقولشت هل أبورة جنعسي هل جماعة نولاد مفكر نولاشة مالها سكسر بالعبي ولينا هل جنكيج كوتشرة وويل أرجع كنافعة لكن أين فنمديسو أين كتشوجين إن نولاشيسا إسبدل مغرقو سمايو وأن أي مدبدا ورباهنتو هكرانيسي لكن كرتديسا أوديد نقضي ضيح الدنيا كيفية ما أنت وحن قصوين ليابل أو دعدوين أو صومري صاحبك فرحان داير عبدي هل كان يدي كسو قد بندونا فضلا أنت مقالك الصعودة ورئيسك كوبان إلا تشوغا مقالك الناصر شرقرية أسحابتين اللو داقا فرحان سودو واندوي هاي أوكي فرحان داير عبدي وحن ربا taariikhdaada oo kooban halkii farxaan ku dhashay naafanimada ama arag la'aanta ma mid uu ku dhashayba mise waa mid dhalashadiisa ka bacdi ku timiday sidee ugu dhacday xaguu farxaan ku barbaaray bal waxaan rabaa marka koobaad in aad isbarto adiga iyo daawadayaasha aan idin kala baxo soo dhow marka farxaan mar labaad aad iyo aad baan dhow insha Allah taala horta farxaan sidaas lagu sheegay waa ninkaas فرحان وحو كل شيء رنتي دلك جبوتي دكتور كوينا دار حنان وحنا مقرن ساي أرجلانتيسو أي كسو بلا بنتي دار حنان فرصة ويدي اللي قد لي فرصة وحو كيانين مقرن ساي بريه أو لجوسو قبت هالك يهالك أو دكذا صابري لجوسو قبته inay keenaan macnaha xano indhaha wax u dhimaan kadibna hal sano markaan jiray sida la sheegay hal sano wax lagu yiri indhahagu waxa way biyaha ayaa ku furtay sida kuleelka awgeed ha laga saaraa leeyahay waa inta uu caadi noqon saasa markaa hal sano jirkeygii ayaa quljeed markaan soo wareegay quljeed markaan soo wareegay xafada ay yaraan sanad kadib marka dabaysho soo baxnayna indhihii waxa way biyaha ku soo furtay wayna qalal ba keenan kadibna saas ay indhu horta dam ku noqdeen nolosheeda hal sano jiray marka quljeed yimiday dhalashahan laakiin wax ku dhashay Djibouti halkaas kadibna wax weeyaan waan wixii intii ka dambeeyay quljeed baa ku barbaaray runtii ma helin quljeedda joogay fursad waxbarasho iyo fursado kale sida waxa taan waxa la qaba dadka dhalinyarada oo dhan gobolka wadal joogo dhan fursadaha aqoonta ma helin sida anigoo kale laakiin ha saateen nolosheeda si caadi ah u bilowday wax ku bilowday inaan macnaha wax qabsan karo sida shaqooyin yar yar oo dhanka macnaha rootida oo ka soo bilaabay wax weyn iyo shaqooyin kale okay waa u iman doona farxaan taariikhdaada cajiibka ah ee ka bilaabmatay Djibouti iyo dhibaatada ka soo gaadhay isbitaalkii Daaru Xanaan markii dambana ay keentay in indhihii ay biyo ku furmaan qalalaan oo noqdo sidoo kalena farxaan sidoo haddaba sheegay uma helin fursad oo waxbarasho laakiin halka ismu dhigan oo wuxuu noqday wiil ka duwan wiilasha fici ah ee indhaha qaba waayo wuxuu galay halgan nololeed oo waliba xagga ganacsiga oo aan ognahay inuu yahay mid aad u adag haddana qof arag la'aan ah inuu bilaabay ka sii adag tahay sidoo kale haddana ay adag tahay qof dhalinyaro ah oo meel tuulo ah ku nool inuu ganacsado bal waxaad farxaan markii aan ka imanno bilowgii noloshaada marka loo yimaado markii aad ganacsiga bilaabaysay maxaad ka bilowday maxaad si kugu dhaliyay sideed markaa ku bilowday ganacsiga kulli noloshu waxa u baahan tahay inaad isbedel la imato nolosha u baahan inaad ad qof oo magaranaysa wax cid wax weydiisanay inaad noqoto aslan taas aan ku fikiraa waxaan ka bilaabay roodi ayaan ka bilaabay bilowgii nolosheeda qisooyin badan baan iga soo maray intii aan nolosha ku dhex jiray farxaanow deena isku deegaan baan nahay dad magaalada quljeed muddo wada joogaan ahayn waxaan xasuustaa dhacdo aad iyo aad beriga ay noo taabatay waliba si gaar ah ku taabatay xilliga ganacsiga bilowga aad ku jirtay